mudaharaadkii ugu weynaa abid waxaa la dilay ra'iisul wasaaraha dalkaas. waxaa la gubay oo dab kala qabadsiiyey xarunta baarlamaanka ee laga soo abaabulo shacabka dhibaatadooda. sidoo kale waxaa la dilay xaaska ra'iisul wasaaraha. sidoo kale waxaa la dilay oo nafta la dhaafiyey ama dhibaato weyn loo geystay wasiirka maaliyadda ee dalkaas. shacabku waxay ku eedeeyeen ama ay ka gadoodeen musuqmaasuqa ka jira waddankaas. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta qaaliga soo dhowaada. waxaan ahay walaalkiini Mr. Kalimataan oo idinla xilli kastoo idin tahay wanaagsan. halkaad nagala socotaan waa pageka Facebook Mr. Kalimataan ama YouTube haddaad iga daawanaysa Mr. Kalimataan. haddii ay tahay markaa kugu horeyso aadna soo booqato waad ku mahadsan tahay booqashadaada. kastamarka hordaa tahayna waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. fadlan YouTube-ka iyo Facebook-gaba follow iga soo dheh, subscribe hasina share garay. maanta duulaan gaarsi waxaan ka hadli doonaa mudaharaadka ka socdo dalka Nepal ama koonfurta Aasiya. bani'aadanka sidiisaba haddii uu ku dulqaato mar walba uu ku safro, mar ayuu furku tuuran doonaa oo bahasha baraka male ay tegi doontaa. xukuumadda Nepal mar walba waxay samayn jirtay waxyaabaha shacabka dhibaato u ah ay soo rogi jirtay, mar walbana say wax u keeni jirtay. maanta waxay keentay in ay tiraahdo waxaa si guud ahaama dalka laga mamnuucay ama laga joojinayaa Facebook iyo TikTok iyo any social media ee waddankaas laga isticmaalo. taas oo ka dhalatay mudaharaadkii ugu weynaa abid waxaa la dilay ra'iisul wasaaraha dalkaas. waxaa la gubay oo dab kala qabadsiiyey xarunta baarlamaanka ee laga soo abaabulo shacabka dhibaatadooda. sidoo kale waxaa la dilay xaaska ra'iisul wasaaraha. sidoo kale waxaa la dilay oo nafta la dhaafiyey ama dhibaato weyn loo geystay wasiirka maaliyadda ee dalkaas. shacabku waxay ku eedeeyeen ama ay ka gadoodeen musuqmaasuqa ka jira waddankaas ama dhalinyaro mudaharaadaysay waa kuwan iyaga oo xarumihii waaweynaa ee baarlamaanka u daatay. haddii lagu dulqaato in baan lagu dulqaato waxaa lagaa rabaa dadka inaad garatid oo dadka ka xishootid. laakiin haddii aad isku malayso in lagaa cabsanayo oo maalin kasta sharci cusub dadka u keento, waxay noqon doontaa dhibaatada ugu weyneed ee adduunka aad ka dhaxli doontaa. wasaaradaha qaar waxay rabaan ay iska sameeyaan. waxaan u maleeyahaa dalalka qaarkii haddii ay maalin kasta sharci cusub say u keenaya ay ka joogsan waayaan, waxaan isleeyahay in la isku bursan doono biyaha eelqalow iyo daalo. sida xogta aan ku soo ogaaday waxaa la ii sheegay in ka badan 3 milyan oo qof ay noloshooda ka maaraysan jireen aaladda Facebook ee waddankaas laga isticmaalo. waddankaas badanaa dhalinyarada shaqo-la'aana haysay, waxawaaye noloshu iska adkeyd. iyadoo saas ay tahay xukuumaddu waxay soo rogtay in ay social media waddankooda ay ka joojiyaan. waxayna ay dhaheen ama ay sheegeen in shacabka waddankaas ku nool dhagoole ay ka dhigi doonaan. haddii mar social media oo dhan laga joojiyo waxaad la mid tahay in qof dhagoole waxba ma dhaantid, sababtoo ah caalamka wax ka dhacay lama socon kartid. waxaa wararka adduunka meesha u socda lama socon kartid. adduunyada dhan waa laga soo xirxiraa oo waxaa lagu gelinaa meel yar oo adig keliga ku jiri kartid. sida hadda wadamada qaar ay ka jirto Chinese-ka, hadda social media all station waa laga mamnuucay, laakiin ayaga unbaa isdhegaysto oo waddankooda wixii ka jiro ama waddankooda wixii kusoo kordho unbay ogaan karaan. ma ogi daafaha caalamka wixii ka jira mala socon karaan. tusaale ahaan hadda annaga Soomaaliya joognaa, wixii Maraykanka ka jiro inta ayaan kala soconaa oo dhacdooyinka waa lasoo gudbiyaa. marka waddan kastoo social media laga joojiyo waxay ka dhigan tahay in dhagool laga dhigay ama wararka caalamka uusan soo gaari karin. marka sidaa daraaddeed dhalinyaradu waa ay mudaharaadeen, wayna ka gadoodeen, waxayna xarumaha u daateen baarlamaanka, golaha wasiirada, xaaska ra'iisul wasaaraha. xitaa waxay ku qasbeen in ra'iisul wasaaraha uu xilka uu iska casilo iyo wasiirka maaliyadda. waddanka hadda waxaa la wareegay ama xukuumadda gacanta ku haya militariga dalkaas. wuxuuna sheegay militariga in ay wada hadal heegan ay yihiin xil walba oo shacabka ay u baahan in ay la hadli doonaan, xiisadana ay dejiyaan, wax walba oo shacabka ay u baahan yihiin ay ka gorgortami doonaan oo ay wada hadalka geli doonaan. waxayna sheegeen in la soo celin doono social mediahii barnaamijyaadkii dadka laga xiray. sidoo kale waxay sheegeen wax kasta oo shacabka ay u baahan yihiin in ay samayn doonaan. shacabkan waxay ku mudaharaadayeen in
rabitaankooda la hirgeliyo, sidoo kale in isbeddel uu waddanka ka dhaco maadaama waddanku uu noqday waddan gumeysta oo dad qaar ay iska haystaan. Marka gumeysiga sidiisa waxa laga dhaxlo waa mudaaharaadyo, dad in la dilo iyo waxyaaba la mid ah. bini'aadankana dulqaadkiisa waa uu badan yahay. haddii uu baasha meesha ugu dambaysa aad geysan waxaad ka dhaxli doontaa in guriga uu soo daato. ciidanka waxay adeegsadeen gaaska dadka lagaga ilmaysiiyo. dhibaato badan ayaa ka dhacday, in ka badan 25 qof ayaa ku geeriyootay, inkastoo wasaaradihii wixii ay ilaalinayaan loo dhacay oo shacabka ay u dhaceen. wararkaas ayaa ugu doorka roonaa kuwa caalamka. marka Soomaalidu waxaan leenahay ku quus qaata shacabka waxaad ku soo rogaysaan. haddii aad maalin walba aad wadaan waxaa dhici doonta mar bahasha baraka male ay tagto oo shacabka ay ooda goostaan oo wax soo celinaya aysan jirin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciao ciao.